halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ee filimada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. subax wanaagsan akhyaaray waa sabti 1 bisha May 2020 saacada Afrikada Bariina waxay tilmaamaysaa 7 subaxnimo. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena in subaxnimo waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo la filayo inuu maanta hortago golaha shacabka ee federaalka Soomaaliya iyo golaha midowga musharaxiinta oo golaha digniin u diray. go'aanka baarlamaanka la hortagi rabo asaga iyo baarlamaanka xilkiisu dhamaaday uu yahay mid sooban oo Soomaali u qalmo oo hadda 2 sano looga noqonayo wadna lagu siinayo xukuumadda asaguna uu gadaal uga durgayo. hadda waa wax wanaagsan oo waxaan ka hadlaynay malaha markaas hadlayna u baaniri musharaxiin xisbi mucaarada uga sharaxnaa gobolka City ee deegaanka Soomaalida oo doorashadii qaadacay. annagu inaan maanta aan tamashaad bilowno oo niraano doorashaan ka qayb galayna waxay ka dhigan tahay walaalahayaga annaga dilnay annaga saxeexnay dhulkaas inuunan ka tirsanayn dowlad deegaanka Soomaalida. militariga Chad oo sheegay boqolaal maleeshiyaadka falaagada inay dileen hay'adda UNHCR iyo dowladda Kenya oo ku heshiiyay qodobo la xiriira xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan. anuu Cabdiraxmaan Xaaji Caddo in la socodsiinaya. qodobadaasi oo faahfaahsan ay noo dambeeyaan marka waxaad ku soo dhawaataan warka idaacadda subaxnimo waxaan u diyaar ah Axmed Badar. maasanid Cabdiraxmaan Xaaji Caddow. dowladda Australia ayaa waxay si ku meel gaar ah sharci darro uga dhigtay in muwaadiniinteeda ku sugan dalka Hindiya ay dalka dib ugu soo laabtaan si looga hoggaashanto fayraska corona. laga bilaabo Isniinta dadka reer Australia ee ku sugnaa dalka Hindiya 2 toddobaad ee ugu dambeeyay kuma laaban doonaan dalkooda. qofkii jabiya xeerkan cusubna waxa uu wajihi doonaa 5 sano oo xabsi ah. waxaa la rumaysan yahay in dalka Hindiya ay imika ku sugan yihiin 9,000 oo ah muwaadiniin u dhashay dalka Australia. saraakiisha gobolka ku yaala galbeedka dalka Hindiya ee Gujarat ayaa sheegaya in ugu yaraan 16 qof ay ku dhinteen dab ka kacay isbitaal lagu daweeyay bukaanada fayraska corona. dadka dabkaasi ku dhintay waxaa ka mid ah 2 qof oo ah howlwadeenada caafimaadka ka shaqeynaya isbitaalkaasi. sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq ka baxaya isbitaalka Batel ee ku yaala magaalada Buraja. madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi ayaa ku dhawaaqay in la go'doomiyay 2 gobol oo ku yaala bariga dalkaasi halkaasi oo muddooyinkii u dambeeyay ay dhibaato ku hayeen kooxo hubeysan. afayeenka u hadlay dowladda Congo Patrick Muyaya ayaa waxa uu sheegay in tilaabadan looga gol leeyahay in lagu soo afjaro amni darrada ka jirta gobolka waqooyiga Kivu iyo gobolka Ituri. xukuumadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa wajahaysa dibadbaxyo looga soo horjeedo in dowladdu ay ku guuldareysatay joojinta weerarada kooxahaasi hubeysan ay geystaan. dalka Hindiya ayaa maanta waxa ka bilaabanaya wareegga saddexaad ee barnaamijka talaalka kaasi oo imika ay qaadan karaan dhammaan dadka waaweyn. talaalkana ayaa ku soo beegmaya xilli Hindiya ay la daala dhacayso sidii ay u xakameyn lahayd fayraska corona oo dalkaasi farabaan ku haya. arrintan ayaa sababtay in ay sare u kacdo tirada dadka doonaya in ay talaalka qaataan. ugu dambeynna waxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Biden ay meesha ka saarayaan isla markaana ay joojinayaan dhisidda darbigii uu Trump ka dhisayay xuduudda Mexico. afayeen u hadlay Pentagon-ka ayaa sheegay in lacagihii ku bixi lahaa dhismaha darbigaasi imika lagu fulin doono mashaariic dhanka militariga. Cabdiraxmaan mahadsanid Axmed Badar. dhegeystayaal halka warkaas idinkaga imanayana waa BBC. aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maanta golaha shacabka ee federaalka Soomaaliya hortago oo uu jeediyo khudbad uu kaga hadlayo khilaafkii dhawaanahan ka taagnaa doorashada Soomaaliya. wariyaha BBC-da Ibraahim Maxamed Aadan ayaa faahfaahinaya arrimaha laga filayo inuu madaxweynaha khudbadiisa uu ku soo qaado. kulanka waxaa la filayaa inuu bilowdo waqti ku dhow duhuradii inkastoo sida ku qoran warqada loo diray xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka la yiri fadhigu wuxuu bilaabanayaa 9 aroornimo laakiin sidii aan horey uga baranay waxaa jirta in badanaaba dhowr saacadood uu kulanku dib u dhaco ilaa inta quorumku ka buuxsamaya. marka adiga ilaa 12 duhurnimo ayaa la filayaa in uu kulanku furmo waxaana kulanka ajandihiisu yahay sida guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka uu sheegay
hadal jeedinta madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo laftigiisu khudbad uu jeediyey ku sheegay in uu golaha shacabka hortegi doono kadib markii labada maamul goboleed ee galmudug iyo hirshabelle iyo markii dambe maamul goboleedka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay dhammaantood sheegeen in aanay muddo kordhinta golaha shacabku sameeyey aanay xal u ahayn mushkilada siyaasadeed iyo midda amni ee dalka. sidaa daraadeedna ay tahay in dalka doorasho u aada islamarkaana heshiiskii 17 Sebtembar wax kasta aasaas u ahaadaan. madaxweynuhuna markii dambe wuxuu sheegay inuu taageersan yahay go-aankaas laakiin uu golaha shacabka hortegi doono. marka dabcan khudbadaas madaxweynaha ayaa la sugayaa inkastoo siyaasiyiinta mucaaradkahi ay shaki ka qabaan kulankaasi in khudbada madaxweynaha oo kaliya laga jeedin doono. xalay golaha midowda murashaxiinta wuxuu sheegay in uu uga digayo guddoonka golaha shacabka ee muddo xileedkiisu dhammaaday inay qaadaan tallaabo lagu dibindaabiyeynayo xasiloonida iyo geedi socodka doorashooyinka dalka. waa sida ay hadalka u dhigeen sidii dhacday bay yiraahdeen 12 Abriil 2021 iyaga iyo tiro kooban oo xildhibaano ah ay u qaateen go-aan sharci darro ah bay yiraahdeen oo dalka u horseeday qallaase siyaasadeed iyo midda amni. dabcan marka waxaan sugaynaa waa kulankaas oo ajandihiisu sida goluhu sheegay guddoonkiisu yahay hadal jeedinta madaxweynaha, mucaaradkuse ay ka digayaan in waxyaabo kale lagu hoos qarinayo. marka dabcan marka kulankaasi soo dhammaado ayaan ogaan doonaa halka uu golaha shacabku ka taagan yahay go-aanka ay qaateen maamul goboleedyada galmudug, hirshabelle, koonfur galbeed iyo horey ay u qaateen jubbaland iyo koonfur galbeed iyo weliba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk oo ah in dalku doorasho aado oo muddo kordhintii 2 sano ahayd ee golaha shacabku ay meesha uga saareen. bal dabcan isna go-aankiisa wuxuu noqonaya ayaan ogaan doonaa. haddaba sida Ibraahim uu sheegay baa golaha midowga musharaxiintu digniinta uu soo saaray maxay tahay, maxaase ku kalifay in iyadoo aan weli madaxweynuhu golaha shacabka hortagin ay digniin soo saaraan. daahir maxamuud geelle oo ka mid ah golahaasi ayaa ka jawaabaya su-aalahaasi wuxuuna ku bilaabayaa inuu faahfaahiyo nuxurka baaqa ay soo saareen. waxa uu yahay golaha shacabka ayaa sabab u ahaa ama qayb ka ahaa arrinkii barihii dambe meesha ka dhacayay oo ahaa kororsiimo been ah. tillaabooyinka ayay wax u eg ayaan uga digaynay xilli muddaxileedkoodii maadaama uu dhammaaday. madaxweynaha xilkiisu dhammaadana waxaan uga digaynay inuu ku sii socdo dhaqankiisii 4 sano soo jiray midii ugu dambaysay oo hadda ciidamadii qarankan ay sor fadhiyaan inuu ku sii socdo. waxaan ugu baaqaynay ra-iisul wasaaraha kaalintiisa in la siiyo oo ku aadan qabashada doorashooyinka iyo la wareegida guud ahaan hanaanka amba hay-adaha ammaanka. daahirow mar hadduu ra-iisul wasaaruhu horey u sheegay inay xukuumaddu haatani doonayso in heshiiskii 17 Sebtembar doorashada lagu qabto, madaxweynihiina aanu weli hortegin baarlamankiina ay go-aan soo saarin, miyaan la odhan karin hadalkiinu waa hordhacaad qudhiina qalalaasa ku abuuraysaan? walaal qalalaasaha waa jiraa, laakiin qalalaasaha waxaa abuuray ninka muddadii baan kororsaday yidhi sharciga khilaafay ee dastuurkii ku tuntay. qalalaasaha waxaa abuuray tirada kooban ee baarlamaanka kamid ah ee iyaguna ku dhaqaaqay dhibaatada hadda dhacday horseedkana u noqday. qalalaasaha waxaa abuuray ninka diidan wixii dadkii ka horreeyay ay ku dhaqmeen. 3 madaxweyne oo Soomaali oo madaxweynayaal hore ah ayaa nool. mid ka yimaada haddii uu iska joogi karo oo aanu dastuur iyo dowladnimo aan u baahnayn, cabdiqaasim baa maanta madaxweyne ahaan lahaa. marka waxaan rabnaa hanaankii iyo dhaqankiisa xumaa oo aan naqiinay ayaan ka digaynaa. wax kaloo annagu aan qallaasa ku kicinayna ma jirto. annagu doorashaan rabnaa, doorashadaas baan u taagnayn, 4 sano baan ka sugaynay. qarowgaa siyaasadeed mid u eg inuusan dhicin baan rabnaa markii baarlamaanka la iskugu tago. idinkuma dayr unbaad la soo fadhidaan, maad horta ka warsugtaan oo adeegtaan maadaama ay dhici karto sida aad ka dayrinaysaan si ka duwan inuu u hadlo. haddii sidii wanaagsaneed ay noqoto annagu ma dayrine wixii aan aragnay oo Soomaalina la og tahay oo adduunkuna la og yahay oo dhaqan xumo siyaasadeed ah oo dastuur jabin ah oon hore u soo aragnay ayaan leenahay ayaan lagu soo celin. haddii go-aanka baarlamaanka la hortegi rabo isaga iyo baarlamaanka xilkiisu dhammaada uu yahay mid sooban oo Soomaali u qalmo oo hadda 2 sano looga noqonayo awoodna lagu siinayo xukuumadda asaguna uu gadaal uga durgayo ilaa looguma beegin gacan ku haynta iyo daadihinta doorashooyinka. hadda waa wax wanaagsan oo waxaan ka hadlaynay malaha markaas hadlayla un baan niri haddii uu ka leexan rabaan hadda waa ka digna dadka Soomaalida waa la wadaagnay. yaan xumaan la samaynin qaalaasa ma aha. qaalaasa waa inaad ciidan intaad soo kaxayso dad ku disho sida hadda ka hor uu samay jiray. daahiro waxaad carabka ku dhufatay inuu ciidanka uu kala qaybsamay oo isor fadhiyaan, taana aad ku rayso madaxweynaha. miyaan la odhan kara idinkuba qayb baad ka tihiin arrintani oo laga yaabaa qudhiinu inaad cadifad qabiil isticmaasheen oo kala qaybinta ciidanka laftiinu qayb ka tihiin? maya qayb kama nihin. ciidamada kuwa asaga diidan waxa ay dalbanayaan waajib
waajib ay leeyihiin oo ah dastuurka inay ilaaliyaan. Dastuurka farmaajo iyo mid ka horreeyay iyo mid ka dambeeyaba waxaa u qoran 4 sano oo madaxweynenimo ah. Ciidamada waajibaadkooda waxaa ka mid ah inay dastuurka ilaaliyaan. Dastuurka waxa laga ilaalinayaan cadow dibadda kaliya ma ahane, xataa madaxda markaas joogta ayaa laga ilaalinayaa. Ciidanka ku diida 2 sano oo kororsiimo ah haddii kuwa kale uu ka horgeeyo asaga ku taageersan ama uu ku amray kala qaybinta asagay ka timid, dastuurka uu khilaafo bay ka timid. dastuurka waan difaacaynaa ciidamada yiri iyo dadkay la fiican yihiin oo annaga ah kama imaan. haddii uu madaxweynaha bahasha dhulka dhigo oo uu yidhaahdo anna musharax tartamaya un baan ahay ma aqbalaysaan? hadda madaxweynaha inuu waa walaalkeen madaxweynihii hore aan idhaahdee murashax inuu noqdo waa xaq muwaadana oo muwaadin kasta ayaa xaqaas iska leh oo waa uu tartami kariyaa. tartanna looma diidano, laakiin waxaa la rabaa in tartanka marka uu gelayo uusan awoodda ciidanka iyo doorashooyinka asagu aanu gacanta ku haynin oo ra-iisul wasaaraha uu ku wareejiyo. waa asagoo muwaadin Soomaaliyeed oo hore xil usoo qabtay oo tartanka gala. ahlan wasahlan. kaasi wuxuu ahaa daahir maxamuud geele oo ka tirsan golaha midowda musharaxiinta oo khadka telefoonka igu waramayey. dhegeystayaal, markan haddii aynu eegno dhegeystayaasheena fikirkooda dhinaca Facebook inoo soo mariyey farxaan caraale oo jooga beledxa waxa uu runtii aad ayaan ugu xumahay ismariwaaga ka taagan doorashada Soomaaliya, waxaana dhinacyada isku hayo uga baaqi lahaa in ay midkood tanaasul ay sameeyaan si dalka doorasho uga markaasi dhaqan gasho iyadoo la raacayo heshiiskii 17 Sebtembar. madaxweynuhuna waa inuu tanaasul sameeyaa meeshana ka saaraa muddo kororsiga si dalkani iyo dadkanba loo badbaadiyo. faarax maxamed caydiid oo Hargeysa ka soo qorayn waxa uu yiri madaxweynaha Soomaaliya ee maanta la filayo inuu hortago golaha shacabka waa bogaadinaya, waxaan rajeynayaa in qorshaha uu wado ay la qaadan doonaan xildhibaanada golahu. waxaan uga baaqayaa dhammaan cidda ay khusayso xaaladda uu haatan dalka ku jiro in ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka iyo wadaxaajoodka. waxaana leeyahay talawa nabadwaana nololwa. mahadsanidin ayuu yiri. inaguna waxaan leenahay dhegeystayaal aad baad u mahadsantiin. halkaad nagala socotaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. markana deegaanka Soomaalida, musharaxiinta xisbiga mucaaradka ee cadaaladda iyo xurriyadda uga sharaxnaa gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay doorashada qaadaceen. musharaxiinta xisbiga mucaaradka ee doorashada gobolka City qaadacay oo ka kooban 27 musharax waxay sheegeen qaybo ka mid ah shacabka gobolka City oo doorashada ka maqan in ay u cuntami weyday doorashada inay ka sii qayb ahaadaan. waxaa kaliya oo doorashada ay sheegeen inay uga qayb geli karaan guddiga doorashooyinka qaranka oo ka noqdo go'aankii uu ka gaadhay in ay doorashada ka dhaceen magaalooyinka Cadeytu, Candhuufo iyo Garbaciisa iyo 30 tuulo oo galbeedka gobolkaasi ku yaala. haddaba si aan arrintaasi wax badan uga ogaano waxaan khadka telefoonka kula xiriirnay Aadan Allaale Cali oo ah isku duwaha xisbiga mucaaradka ee xurriyadda iyo cadaaladda ee arrimaha doorashada gobolka City. ugu horreyn waxaan weydiiyey doorashada in ay qaadacaan waxa keenay. walaalow waxa weeye gobolka City dhibaatooyin fara badan ayaa jiray. sidaad u ogtahayba 3 magaalo oo Cadeytu, Candhuufo iyo Garbaciisa la yiraahdo iyay intan dambaba dhibaatooyin waaweyn ay ka jireen. waxa aan anagu u qaadacnayna waxa weeye golaha doorashooyinka ee heer qaran yaa horay u qaatay qaraar oranaya anagu doorashada waxaan ka samaynaynaa dhammaan Itoobiya meelihii horay ay uga dhacaysay oo dhan. arrimaha nabaduna dawladda Itoobiya ay khuseeyaan iyo dawladaha gobolada. annagu waxaana khuseeyo qura doorashada inaan sameeyo tii sidaa ahayd ee la isku ogaa ee la sugayay iyay ka guureen. marka ay ka guureen waxaa dhacay in maadaragtay ay yidhaahdaan magaalooyinka 3 magaalo iyo deegaan kale oo weyn oo galbeedka City doorasho kama qabanayno maadaama ay dhulka dhibaata ay ka jirto oo nabadgelyadeedu ayna sugnayn kama qabanayna bay yidhaahdeen. mar haddii ay guddiga doorashooyinka federaalku sidaa yidhaahdeen cidda ku habboon ee la hadlaysa ma idinkoo xisbi ah ayaa dacwadda gudbinaya mise maamulka dowlad deegaanka Soomaalida? waad wanaagsan tahay. maamulkii dowlad deegaanka Soomaalida ugu sareeyo Mustafa iyaa tabiyay warqad u qoray golaha doorashada oo yiri dhulka aad leedihiin doorasho kama dhacayso 30 qabale iyo 8 gobood kale wax aan aqbalayna maaha. waxaan
waxaan ku qasbanaan karnaa in aan doorashadaba ka baxna buu yidhi aan ku qasbanaan karnaa markaa golihii doorashadii qaranka Ethiopia xilligaas si foolxun bay ugu jawaabeen markaa gobolkan city oo arrintan si gaar ah u saameeyay odayadii iyo siyaasiyiintii oo dhan ku dawladeed iyo ku mucaarida intaba yaa iskugu tagay magaalada Shiniile shir weyn baan ku qaadanay waxaan go'aansanay in doorashada maadartay haddii dhulkaas lagu soo darayn aan qaadacay oon leenahay annagu haddaan nahay gobolka city doorasho kama qayb galayno waxaanan uga qayb galayna qayb annaga oo naga maqan oo dib weyn lagu hayo annagu inaan maanta aan tamashaad bilowno oo nidhaano doorashaan ka qayb galaynaa waxay ka dhigan tahay walaalahayaga annagaa dilnay annagaa saxeexnay dhulkaas inuunan ka tirsanayn dowlad deegaanka Soomaalida laakiin xisbigiina oo kaliya ayaa qaadacay ilaa haatan intaanu ognahay laakiin dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka jira xisbiyo badan oo siyaasadeed kuwii kalena way ka sharaxan yihiin oo wax war ah oo ay ku qaadaceen muu soo bixin marka go'aankiinu muxuu miisaan yeelanayaa haddii xisbiyadii kaleba ay ka tartamayaan gobolkaasi horta waxaan ognahay xisbiyada kalena inay iminka ay ku jiraan wada hadallo sida ay u qaadici lahaayeen xitaa annagu baaq baan u jeedinay iyaga oo leenahay walaalayaalow haddii aan nahay ummad Soomaaliyeed oo isku xidhan qayb annaga naga mida oo loo diidan yahay inay xeesho inay xeerkii ay dooran lahayd ay waxna dooran lahayd u lahayd oo la diidan yahay inaguna waxaan naga codsanaynaa inaad naga qayb noqotaan oo aad halganka aan ugu jirno arrintaas aad nagala soo qayb qaadataan baan nidho iyagana baaqta waan u dirnay annaga dhinacayaga miisaan weyn bay leedahay miisaanka ay leedahay waxa weeyaan gobol dhan baa wixii ka soo horjeeday mucaarad ahaa iyo dad badan oo kaleeta iyo shacabkii oo dhan annagu waxaan hormood u nahay xaq iyo xuquuqda ummadaas ay leedahay inay hesho sidaasaan annagu aan maanta uga hadhaynaa doorashada waxaanan baaqna aan u dirno la hadalnay walaalahayaga kale ee xisbiga barwaaqo ka tirsan ee gobolkan city iyaguna ay qaadacada ay ku dhawaaqaan yaan iyagana maadartay ka sugaynaa ugu dambeyn mar haddii sidaa baaqa aad u dirteen xukuumadda deegaanka iyo xisbiga barwaaqo ee deegaanka taladiisa haya ba idinka aqbaleen arrintaa mise weli way ka sharaxan yihiin musharaxiintooda gobolka city annagu waan u baaqnay waanan ka sugaynaa xubno ka midana caawadan waan la hadlayo waxay igu jawaabeen isada inaan ku dhawaaqnana waan wada hadlaynaa inaan halkaa aan marno iyay u badan tahay bay igu yidhahdeen rag iyaga ka mida musharaxiintii ka mida ururka barwaaqo oo mas-uuliyiin ah kaasi wuxuu ahaa aadan allaale cali oo ah isku duwaha arrimaha doorashada ee xisbiga mucaaradka iyo xorriyaddii cadaaladda aadhaad ee gobolka city oo khadka telefoonka igu waramayey bal markana dhegeystayaasha fikirkooda kasoo dhiibtay qodobka haddii aan eegno sayid cumar cusmaan cabdille oo jooga dhuusamareeb waxa uu yidhi musharaxiinta xisbiga mucaaradka uga sharaxnaa gobolka city ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ee qaadacay doorashadii runtii waa arrin culayskeeda leh waxaase muhiim ah in guddiga ay markaasi qanciyaan mucaaradka waxa ay ka cabanayaan si doorashada lagu wada qanacsan yahay marka ay deegaanka uga dhacdo faarax bashiir oo jooga magaalada Garowe waxa uu yiri musharaxiinta ka soo jeeda gobolka city ee qaadacay doorashada lagu wado inay ka dhacdo dowlad deegaanka Soomaalida waxaan u arkaa caqabad hor leh oo soo wajahday hanaankii doorashada runtiina waxaad moodaa inay soo badanayso cabashooyinka ka imanaya xisbiyada mucaaradka ee dhanka doorashada waa fikirka dhageystayaasheena dhinaca Facebook noo soo mariyeen qaarkood markana Chad militariga dalka Chad ayaa sheegay boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka falaagada in ay ku dileen dagaaladii labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday galbeedka dalkaasi afayeen dowladda u hadlayna wuxuu sheegay in dagaalkaasi 6 askari lagu dilay dagaalka dowladda iyo falaagada dhexmaray ayaa ka dhacay meel caasimadda u jirta 250 kilomitir oo u dhow halkii madaxweyne Idris Deby uu dhaawaca uu u geeriyooday uu ka soo gaaray horaantii bisha Abriil warbixintani uu soo diray fatiraha arrimaha gobolka Will Ross waxa soo jeedinaya Ahmed Badar shaki kuma jiro in dagaallo ay ka dhaceen meel u dhow magaalada Nakao ee gobolka Kanema ee dalka Chad laakiin arrinta ay adag tahay in la xaqiijiyo warbixinta uu soo saaray militariga dalkaasi oo ku sheegay in ay dileen 200 oo dagaalyahanada cadawga ku ah waa sida hadalka u dhigeen ciidamadu waxay isku dayayeen baryahanba in ay joojiyaan guluuf kooxda fallagada ah ee loo soo gaabiyo magaceeda FACT oo ku soo siqaya dhanka magaalada madaxda dalkaasi ee Jamina militariga dalka Chad ayaa waxa ay taageero ka helayeen ciidamada cirka Faransiiska hase yeeshee fallagada la dagaalamaysa waxa ay saarad xog leh ka helaan dalka Liibiya caqabada kale ee haysata generaalka hay-talada dalka Chad ayaa ah diidmada kaga imanaysa mucaaradka aan hubaysnayn kuwaasi oo dadka mudaharadaya ay diidan talada ay militariga la wareegeen kadib markii uu geeriyooday madaxweyne Idris Deby
axmed beder aad buu u mahadsan yahay. halkan nagala socotaana waa b b c. ka dhagaysa b b c Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. waa hagaag maanta oo kale ka wada bisha May waxaa caalamka laga xusaa maalinta shaqaalaha iyo xoogsatada adduunka. dowladaha caalamka ayaa sanadkii tagay iyo sanadkanba shacabkooda ka codsaday inay guryaha ka soo shaqeeyaan fayraska corona awgii. dhaqaalaha dalal badan oo cudurka safmarka uu yaqayna wuxuu sababay inay dad badan shaqo la'aan noqdaan. haddaba waa maxay saameynta uu fayraska corona uu ku yeeshay shaqaalaha dowladda iyo xoogsatada? arrimahaasi ayaa waxaan ka wareysanay Ibraahim Axmed Cilmiye oo gudoomiyaha ururka shaqaalaha ismaamulka Mandera. Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayuuna warramay. muhiimadda ay noo leedahay maalinta shaqaalaha iyadoo shaqaalaha dhowr nooc ay kala yihiin waa maalin dunida dhammaale looga ataysan yahay oo loo yaqaana inay tahay maalinta shaqaalaha. muhiimadana waxay ku tahay xurmeynta la xurmeynaya shaqaalaha ayaa loogu magac daray midda koobaad. midda labaad dhibaatooyinka iyo arrimaha haysta shaqaalaha iyo faa'iidadooda iyo caqabadaha ka hor imaada shaqaalaha dunida oo dhammaale ayaa maalinta iyada lagu xusaa. taariikhdeeda ayaa laga sheekeeyaa. marka waa maalin aad iyo aad xagga shaqaalaha u muhiim mid hoose iyo mid koraba. haatan qaybo ka mid ah oo caalamka ah waxaa ka jira xanuunka coronavirus. dalka Kenya ayaa ka mid ah dad badan ayaana lumiyay shaqooyinkooda. arrintan sidee u saameysay howlwadeenada dowladda ee gobolka Waqooyi Bari Kenya? caqabada ay nagu noqotay cudurkan coronaga waa badan yahay ma yara. midda koobaad shaqaalaha naga dhintay oo dhimashaad nagu keenay. midda labaad ilmiyaad naga agoontay ilmiyaad naga rajay. midda saddexaad dhaqaale burburaad nagu keenay dhaqaale aan tabartahaynaba ahayn shaqaalaha dalkiis aan tabartoodaba ahayn. midda saddexaad dadkii loo shaqaynayaaba shaqada naga bixiba dowlad noqota kambani noqoya shaksi noqoya lacagtaaba loo waayay shaqaalihii. marka hadiiba kambaniyada la xiray haddii shaksiyaadkii ay xirteen dukaamadoodii dadkii sidii ay ku shaqa waayeenba ay kusoo dhaceenba shaqa la-aan ayaa halkii ideed ka soo dhacday. waxaa noo reebay male kana dhib weynaad noo keenay anaka shaqaale ahaan haddaanan. dowladaha qaar ee caalamka waxay shacabkooda ku amreen inay guryaha ka soo shaqeeyaan fayraska corona awgii. arrintan ilaa iyo hadda maxaa saameyn ah oo ka dhashay? anaka nasiib wanaag horta weli in yarba hadda kasoo shaqeysa cidaha kasoo shaqeysa oo khadadka internetka iyo waxaad ku shaqa gasha anaka weli ma gaarin heerkaas oo looga soo shaqeynayo cidaha khaasatan anaka ayna county Mandera oo kale markaan ka hadlayna weli sida aynan anaka xafiisyaha u tagnaa. sababta maxay tahay? waxaa waaya dee aaladahaas oo xaafadaha looga soo shaqeeya dadkeena kulli ma wada gaarin. dadka barkiis aqoon uma laha in yara aqoon u leh. dadka barkiis kombyuutaradiiba ma gadanin oo lacagtooda ma goyn karaan. dadka barkiis internetka hataa waa dhib. marka fursadahaasa dhamaalaa naga xiri. waxa hadda dowladda ay naga xirta ama inoo diidi maaha laakiin fursadihii jiriyaa meesha aan ku jirin. marka taasaan kamid wixii keenay in inta badan ay shaqaalaha weli xafiisyaha tagaan. waxaa halis noogu jiro weliba aad halis noogu jiro shaqaalahayna caafimaadka dhakhaatiirta kalkaalayaalka iyo wixii isbitaalada ka shaqeynaya kulli waa dadka koobaad oo aad iyo aad halista coronaga noogu jiro. waxaan leeyahay shaqaalaha meel kastoo joogaanba amarka dowladda amarka countigeenna amarka dhakhaatiirteenna caafimaadkeenna anakoo danaynayna walaalayaalow shaqaalaha hadaynu nahnay cududda xoogga aan laga maarmaynaa nahnay dadweynahaan laga maarmaynin aan wada nahnay aan taxgelinna wax alla wixii nala fara maaskiga xiriishadiisi sanitizer iyo gacmihii kala dhaqashadoodii kala fogaanshihii caafimaadka iidahay wixii noogala dardaarmay aan taxgelinno oon annaka shaqaalaha aan kow ka noqono inaan aad iyo aad isu ilaalino anoo shaqaalaha markii ka mas-uuli intaasaan inkula dardaarmay. kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Axmed Cilmiye oo ah gudoomiyaha ururka shaqaalaha ismaamulka Mandera oo u warramay Kowsar Maxamed Cabdullaahi. isla wararka Kenya ayaanu ku jirnaa. dowladda Kenya ayaa sheegtay inay si rasmi ah ugu gudbisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR in ay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma wixii loo gaaro 30 bisha June ee 2022. arrintaasi waxaa shaaca ka qaaday wasiirka amniga gudaha ee Kenya Fred Matiang'i kadib markii uu kulan la yeeshay madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR Filippo Grandi. haddaba si aan wax uga ogaano qodobada ku jira heshiiskaasi ayaa waxaan khadka telefoonka kula xiriirnay Maxamed Cabdi Afey oo ah ergeyga gaarka ee hay'adda UNHCR u qaabilsan Geeska Afrika. wariyaha BBC Axmed Beder ayuuna u warramay.
dowladda Kenya iyaga waxay ku adkaysan in xarooyinka la xiro annagana waxaan soo jeedinay in xal waara laga gaaro tamaca ku nool xarooyinka Kakuma iyo Dadaab muddo hal sanana gudaheedna halkaasi aan ka wada shaqeyno oo ugu horeyso dadka faraha qaxootiyaha oo Kenyaanka ah oo database-ka UNHCR ku jira inay si degdeg ah dowladda Kenya uga saaraan si nambarada aan marka aan ogaana dhabta ah oo u baahan inay xal la helo oo qaxooti ah inay maaragtay dardargelin aan ku sameeyna dib u dejinta qaxootiyaha oo hadda dowladda Mareykanka ugu horeyso iyo in badan oo si dowladda Kenya ay sheegtay qaxootiyaha ka imaaday wadamadan East Africa iyaga inay maaragtay dowladda Kenya sharci iyo wax ay u raadiyaan midda ugu dambayso ah marka in laga wada shaqeeyo dib u dejin taasna ay noqoto maaragtay mid dadka iskood ay u doortaan waxaan isleenahay mustaqbalka hal sano kadib inaan heli doono marka xal waara muddo sanad ayaa sheegtay in ay dowladda Kenya sheegtay inay ku xirayso xarooyinkani suuragal ma tahay in qaxooti deganaa 30 sano oo dhowr boqol oo kun ah in muddo hal sano ah la raro waxaan ku heshiinay horta inaan laba guddi oo guddi hay'adda UNHCR iyo guddi dowladda Kenya ka socda oo guddi farsamo ah loo saara hawshaas ay ka shaqeeyaan ay darsaan marka isla markaasna halkaasana kadib haddii ay jirta marka in la gaaro talooyin kale la qaato laakiin waxaa xaqiiq ah hal sano kadib horta in magaca refugee camp xarada ay qaxootiyaha ku nool yihiin magac ahaan inuuna usii jiri karin annagana taas waxaan ka raalli baan ka nahay haddii magac kale noo lagu bedelayo mustaqbalka haddii aan fursad u helna dadka idil inaba xal loo helo dadka daruufooyin ayaa keenay inay waddanka Kenya ay usoo doontaan nabadgelyo daruufooyinkaasi haddiiba xal laga wada gaaro dawaatii la rabay oo maartay qof raba inuu qaxooti ka noqdo naftigeeda inayna jirin ayaan aaminsanahay marka haddii la go'aansado in dib lagu celiyo dalka Soomaaliya oo kale ma jiraan qorshooyin aad idinka kayaadaan u haysaan horta haday Soomaaliya inay ku noqdaan haday noqoto waa inay iyaga iskood ay isku diiwaan geliyaan waa inay Soomaaliya markaas loo helo nidaam iyaga markaas ay isku aamini karaan inay ku noqdaan waa inay dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya iyo hay'adaha caalamiga ah ka wada shaqeeyaan si dadkaasi ay deegaamada ay ka yimaadaan ay si nabad ugu laaban lahaayeen marka waa wax shaqo u baahan laakiin waxaan rabaa inaan qaxootiyaha kali u xaqiijiyo inayna walwalin hadalladii ka soo yeeray dowladda Kenya ayna ku abuurin tashuush iyo walwal inay arrimahaasi aan ka wada hadalnay guud ahaan heshiisna aan ka wada gaarnay hadda taas arinta fayraska corona oo caalamka guud ahaan farabaan ku hayaya xilligan socda arintaas oo caqabad ma aha haddii ay noqoto in qaxootiga la raro dabcan waa caqabad sanadkan soo dhaafnayna arrintaasi dad fara badan oo iskood u noqon lahaa aad iyo aad bay u hakadeen iyadoo arrintaasi la taxgelinaya haddana waa la taxgelinaya dabcan coronaviruskana arrinta hadda jirta dhinacay ka noqonaysaa inay arrintaasi talada lagu darsado guddiga hadda la sameeyey ayaan jecelnahay inay arrintaas intay kasoo baaran degaan barnaamij soo dejiyaan marka laga soo tago qaxootiga lagu celinayo dalalkooda ma jiraan qorsho UNHCR ay dadka qaxootiga ah ay kaga caawinayso in dal saddexaad loo gudbiyo oo dibadejin looga sameeyo way jiraan muddo badanna arrintaasito UNHCR hadda way ku hoolaneed oo dad fara badan ayaaba nidaamka oo kale horaana ku tegey haddana dowlado badan ayaa laga yaabaa inay fursad ay bixiyaan laakiin waxaan rabnaa inaan hoosta ka hareerno fursadaas fursado badan ma aha oo aad iyo aad ayay u yar yihiin waxaana ku guulaysta dadka ay u arkaan inay aad iyo aad muhiim u tahay inay si degdeg xal ceenkaas loo raadiyo kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi afe oo ah ergeyga gaarka ee hay'adda UNHCR u qaabilsan geeska Afrika u warramay wariyeena Axmed Badar markana xubintii ciyaaraha ciyaar xalay dhacday Southampton iyo Leicester City hal ayay ku dhamaatay ciyaartaas intay socotayna laacibka daafaca uga ciyaar kooxda Leicester City Wesley Fofana ayaa markii labaad ciyaarta loo joojiyay muddo daqiiqadaas uu afuro soonka markii la gaaray xilliga afurka kulanka Southampton iyo waliba Leicester City u dhaxeeyay ayaa dhacay arrintan kadib markii uu garsooraha hal daqiiqo joojiyay ciyaarta si uu xidigaasi muslimka ah Wesley marka uu afuro ciyaaraha maanta dhacay waxaa kamid ah Crystal Palace iyo Manchester City Chelsea iyo Fulham ayaa kamid ah ciyaaraha dhacaya guud ahaan idaacadeena subaxnimo noo soo bilaabatay 7 markay ahayd saacada ayaan intaa ku soo afmeeraynaa dhammaanteen waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo